kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horreeyey maanta oo ah maalinimo Arbaca taariikhduna waa 6 May 2026 haddaba wararkii soo kordhay intaynu kala maqnayn xaaladda gobolka bariga dhexe ayaynu barnaamijkan ku faahfaahinaynaa. ugu horreyn waxaynu ku bilaabaynaa Trump oo sida uu sheegay joojiyay qorshihii uu yiri xurriyad mashruuca xurriyadda waxaa xoog lagu furayaa Hormuz 100 diyaaradood 15,000 dowlado kale Iiraan meel baa la iska kuusaya meelaha lagu xareynayaa maraakiibta la marsiinaya hadda wuxuu yiri waa joojina qorshaas haye maxaa dhacay wada hadallada fursad siinayna marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin wuu isku dayay laakiin waa shaqeyn weys Iiraan ma la handadi karo markaba xagga Mareykanka xagga maray carso maray taagan wixii soo maray waatay nagta ka saartay wixii oo dhan isku qayliyay marka hadda odagii waxa la yiri baashu sidii uu u maleynayay wax ka duwan ayaa meesha ka soo baxay Iiraan in la handadi karo 100 diyaaradood 15,000 askari maraakiibta xoogan ku gudbinayna inay marka xoog ku carar maashi uga baxayaan laakiin waxa la tusaalay niman meel u socdaynaysan ahayn maraakiibteeda meesha marti waa beentaale meesha wax ka maray male arsoo mar cid soo marsiyaalin mashruucan aad leedahay arsoo marsi isniin iyo talaado markii lagu fashilmay odagii xalay iyo Arbaca soo galaysay muxuu yiri tacliiqa ku samaalkii waa dibaan u dhigo yiri arikaas waxaan fursad siinayaa wada hadallada marka sheekadaas marka sheeka aan caadi ahayn ayaa marka hawsha ka socota haddaba wararkii ugu dambeeyay hadaan idin tuso Trump wuxuu sheegay inuu dib u dhigay mashruucii xurriyadda ee Hormuz dhanka kale wasiirkiisa arrimaha dibaddana wuxuu sheegay in uu dhamaaday howlgalkii weerarka ahaa ee ay Mareykanku qaadayeen marka howlgalkii weerarka ahaa ee Mareykanku ay qaadayeen waa dhamaaday mar dambe Mareykan wax ma weerarayaan haye waxay ku bedelanayaan difaac way istifaacayaan marka dadka siyaabo kala duwan marka wax uga falanqeynayaan waxay leeyihiin ninkan waxa ku dhagan Congress-ka Mareykanka ayaa ku dhagan baarlamaankii wuxuu u sheegay marka in dagaalka iyo waxa kan iyo aan loo ogolayn inuu sii wado marka wuxuu leeyahay taatikadii weerarka waa bedelnay waxaan ku bedelnay difaac hujuum waa bedelnay macnaha annaga hadda wax ma weerarayna laakiin Mareykan haddii la soo weeraro uu istifaacaya marka Hormuz area-deeda joogayna Iiraan ayada markana soo weerarayso annagana waa difaacayna weerarkeena marka wuxuu noqonayaa difaac uu noqonayo marka sheekadaas marka ayaa soo baxday laakiin xaqiiqada waxay leeyihiin dadka wax falanqeynaya filinkan waa fashilmay isagana mashruuc al-xurriya la yiraahdo mashruuci xurriyadda wuu fashilmay markab la gudbiyay ma jirto markab Mareykan oo meesha maray ma jirto meesha waxa ku feesteynaya nimankii Iiraaniyiinta ahaa Hormuz gacanta ku haya marka hawshaas marka halkaas maray dhanka kale marka waxa soo baxaya warar sheegaya oo la leeyahay heshiis ayaa qarka loo saaran yahay in la isku afkarto heshiiskuna markii hore waa la kala booday hadda waxa leeyahay Mareykanku tanaasul badan uu soo sameeyay waxyaabo badan uu ka tanaasulaya Iiraan iyaduna waxa laga doonayaa inay tanaasul kale samayso haddaba marka qaar ka mid ah qodobada heshiiska ayaa waxa helay Al Jazeera annaguna idin soo gudbin doonaa adikuna de aragti iyo ra'yi ku darsan doontaan heshiisku haduuba hirgalo ma Iiraan lagu qaaday mise Mareykanka yaa lagu qaaday mise labadooduba waa isku mid markaas arkayna laakiin marka hore warbixinada heshiiska hadaan ka bilowno warbixin laga helay dhanka Pakistan waxay sheegeen inuu soo dhawaaday in ay heshiis gaaraan Mareykanka iyo Iiraan haddaba Pakistan waxay sheegaysaa in heshiiskaas nabadda uu soo dhow yahay iyadoo loo waramay wakaaladda wararka ee Reuters maanta Arbaca in Mareykanka iyo Iiraan ay ku sii dhawaanayaan inay markaa isfaham iyo heshiis ka gaaraan xiisadda halka ka jirta marka
qaybtaasu marka Bakistan waxay leedahay waa loo soo dhow yahay markaan heshiiska waa la gaari rabaa dhinac walba marka saaxigu yimid isla weyninkii gabgabtii Trump iyo kooxdiisa meesha ma jirto adeerow waxa kan miisma ku wada hadlayna saan iyo saanaan rabnaa adiguna saanaan rabtaa wax ma ka tagay waxaan ka tagay ama waxayga hala sameeyo meel ay ka shaqeynayaan male marka hor lagu kala tagay hadda marka waxa leeyahay waxba isku soo dhawaaday haddaba marka aan aragno Al Jazeera oo sheegtay inay soo heshay qodobada la filayo in marka heshiiskooda la shaaciyo haddaba qodobada ugu waaweyn ayaa waxaa la sheegay in heshiiskan la helay oo marka dibadda u yimid haddaba wararkii ugu dambeeyay laga helay qodobadan waxaa ka mid ah heshiis ku dhow heshiis ayay ku dhow yihiin Washington iyo Tehran kaasoo ku saabsan heshiiska arrimaha dagaalkan iyo waxa kan in lagu soo afjaro Washington waxay filaysaa jawaab ka timaada Tehran oo ku saabsan dhowr qodob oo muhiim u ah iyada 48 saacadood gudahood ayaa la filayaa in arintan ay Iran soo dhamaystirto heshiiska Mareykanka iyo Iran wuxuu ka kooban yahay labada dhinac ee ka qayb qaadanaya xayiraadda marinka Hormuz oo Mareykan iyo Iran ah heshiiska waxaa ku jiri doona Iran oo joojinaysa kobcinta uraniumka Washington oo qaadi doonta cunaqabataynta ay Iran saartay iyo siideynta lacagaha Iran ee ka xaniban caalamka in Mareykanka uu fasaxo qorshaha hadda ee qoraalka wuxuu ku dhawaaqayaa in la soo afjarayo dagaalka iyo bilowga 30 maalmood oo wada hadallo toos ah oo ku saabsan marinka Hormuz barnaamijka nuclearka Iran iyo cunaqabataynta Iran saaran oo ay doonayso in laga qaado cunaqabatayntaas wada hadalladu waxay ka dhici karaan Islamabad ama magaalada Geneva ee wadanka Switzerland xayiraadaha Iran ee marinka iyo xayiraadda ciidamada badda ee Mareykanka ayaa si tartiib looga qaadi doonaa marin biyoodka Hormuz muddo 30 maalmood gudahooda haddaba ciidamada Mareykanka ayaa dib u soo rogi doona xayiraadda ama dib u bilaabi doona ficilada military haddii wada hadallada la sheegay inay burbureen haddaba qoraal 14 qodob ah ayaa laga wada xaajoonayaa waxaana la sheegay ergeyga Mareykanka ee Witkoff iyo Kushner iyo saraakiisha Iran inay si toos ah iyadoo loo marayo dhexdhexaadiyaal ay arrimahan u sii falanqayn doonaan qoraalka Iran waxay ballan qaadaysaa inaysan raadinaynin hub nuclear ah oo markaa ay samaysan doonto waxaa laga doodayaa qodobo qeexaya in Iran ay ka go'an tahay inaysan ka shaqayn xarumaha nuclearka ee dhulka hoostiisa mara Washington waxay ballan qaadaysaa iyadoo la raacayo heshiiska is-afgaradka in laga qaado cunaqabataynta Iran iyo in si tartiib ah loo sii daayo hantida Iran uga xaniban caalamka Iran waxa ay ku heshiin doontaa waxay ku heshiinaysaa heshiiskan in laga saaro uraniumkeeda dhibaatada koobaad ku haya Mareykanka mid ka mid ah xulashooyinka laga wada hadlayo waa in uraniumka la yareeyo tayadiisa way marka qodobadan ayaa soo socda la leeyahay laakiin dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin dhowr qodob oo muhiim ah meesha ku jira Iran waxay Mareykankuna waxbuu doonayaa Iranna waxbay doonaysaa marka waa inaan fahamno qodobada ugu muhiimsan ee halkan ku jira ee dadka wax taxliiliya ay ka hadlayaan marka hore Mareykan wuxuu rabay nuclearka Iran kaliya in laga hadlo uraniumka kaliya Iran in laga hadlo oo aan wax kale laga hadlin oo Iran kaliya culays la saaro Iran taas waa diid hadda marka Mareykanku muxuu ogolaaday saaxiib u yimid wuxuu leeyahay nuclear dambe nuclearka ma si awood ku samayn kartaan oo hub ma gaarsiinaysaa waa la kontroolaya
dhulka hoostiisa nuclearka ku jira xataa waa in lala socdaa si aynaan uraniumka u badinin marka qubaraa marka la samayn doonaa oo la socota arrinkaas laakiin nuclearkaaga dhan baabi'i meesha way ka baxday ogow nuclearkeeda ma baabi'inayso laakiin si nabadgelya u isticmaalaysaa maraykanku saaxigu keen midda kale arrinta sawaariikhda in lasoo hadal qaado marnaba iiraan weydiid halka israa'iil ay rabtay gantaalahan inay baabi'iso si iyadu ay nabad u hesho laakiin waa laga diiday maraykan isaguna waa iska dhaafay nuclearkan kaliya uu xooga saaray dhanka kale in hormus la wada furo dhinac kasta ay furaan oo macnaha maraykankuna uu ka tago meesha iiraanna ay furto meeshaasuna sidii dagaalka ka hor ay ahaan jirtay loo maro taasna qodobaday ka mid tahay marka laba qodoba waxaa jirta iiraan ay wadatay oo markii hore maraykanka uu diidanaa in wadahadalka lagu soo daro laakiin hadda uu ogolaaday labada qodob marka maxaa ka mid ah labada qodob waxaa ka mid ah muddo waxaa cunaqabatayn saarnaa iiraan wadamadii xataa la macaamili lahaa maraykankii ka baqayeen in cunaqabatayntaas la qaado marba qayb la qaadayo cunaqabatayntaas in laga qaado iiraan kow in iiraan lacaga fara badan oo dibadda ka jiray oo maraykanku ka xanibay lacagaheeda ay soo qaadato loo fasaxo u fiirsada labadaa qodobaa ugu jirta marka waxaa leeyahay xoogaa marka wadahadalkan iyo qodobadan rajay leedahay dhinac walba inuu maaragtay wax ka tanaasulo dhinaca kale uu wixii uu doonayo lagu soo daro wadaxaajoodka kibir uusan jirin isla weynin jirin macallinka weyn aday kuu taallaa sheekadaada marka arrinkaa marka in loo samaynayo iiraan oo iyaduna ay joojinayso oo markaa nuclear inay samaysato hub nucleara marka sheekadu marka halkaasay mareen wadahadaladuna waxaa dhici karta ugu dambaysa arrinkaa lagu saxiixayo in lagu qabto islamabad oo caasimada bakistana ama magaalada geneva ee dalka switzerland marka waa fahamnaa u malaynaa bal adinkuna fakar iyo aragti waxaad ka qabtaan sheekadan iyo waxa ay idinla tahay bal adinkuna soo qora sida ay bal idinla tahay oo macnaha ma iiraana culays la saaray ma maraykana la saaray waxay idinla tahay fakarkiina qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa qodobada kale ee muhiimkaa shalay waxaan idiin sheegay inuu baxay cabaas caraaqji uu aaday china haddaba marka maanta warkiisii ugu horreeyay ayaa soo dhacay waxaan leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabaas caraaqji wuxuu la kulmay dhiggiisa waddanka shiinaha iyo mas-uuliyiin kale iiraan marka waxay sii sharaxaysaa diblomaasiyad waaye waxay gadaysaa dagaalka meesha ay geeyeen nimanku say isaga dhiciyeen midda kale wadahadalladu meesha ay marayaan mowqifka iiraan ay taagan tahay arrinta hormus wixii oo dhan waa laga sii gadayaa iyadoo shiinaha iyo iiraan markii horeba ay isku dhowaayeen haddana waxaa laga hordhacayaa maraykanka wafdi ballaaran uu trump hogaaminayo ayaa 14 iyo 15 bishan waxay kusii jeedaan bekiin caasimada tehraan marka arrinkaa marka waa laga sii hordhacayaa iiraan marka way nimankii shiineeska ah maskaxdooda kusii shubaysaa waxay leedahay waxaasha anagu aan samaynay mana diidanin nabad laakiin nimanka fidnada iyo dhibka wada iyo waa nimankan marka hawshaasu marka halkaasay ka socotaa haddaba arida tusoo wararkii ugu dambeeyey caraaqji ayaa waxaa la sheegay inuu u sharaxay mowqifkiisa shiinaha wuxuuna ku tilmaamay shiinaha saaxiib aada u wanaagsan wuxuuna ka dalbaday inay markaasi ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa heshiis caadil ah oo dhammaystiran oo iyaga iyo washington dhex mara annaga dayaaraana heshiis waxaan rabnaa caadil ah annaga iyo washington nin walba gartiisa siinay marka shiinuhu adinku arrinkaa ka shaqeeya maadaama uu macallinka weyn meesha usoo socdo marka hawshaas inaad qabataan marka wararkaas ayaa soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay haddaba intii aanu barnaamijka ku jirnay maxaa warar soo dhacay haddaba markii ay soo baxeen wararka sheegaya in heshiis loo sii dhowaanayo shidaalkii wuu soo raqiisay dahabkiina wuu kacay ayaa la yidhi wararkii ugu dambeeyay hadda maadaama heshiis loo malaynayo in la gaari doono dhanka kale waxaa la sheegay in israa'iil ay saacadihii lasoo dhaafay weeraro culus ku qaaday koonfurta lubnaan tirada dadka dhintay 4 qof dhowr kalena way ku dhaawacmeen xisbullah iyaduna waxay sheegtay inay kaga jawaabtay weeraro ay ku qaaday qaacidooyin ama saldhigyo
ay leeyihiin ciidanka Israa'iil. haddaba wararkaasu iyaguna waxay ahaayeen wararkii soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay. asxaabay like garay oo share garay barnaamijka, mar walbana ku xirnaada barnaamijyadeeda xaqiiqada ku salaysan, innagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararkaanu soo gudbinayno halka ay ka yimaadeen. like garay oo share garay barnaamijka, haddaad cusubtaan subscribe-ka ka iloobi, youtube-ka, facebook-gana follow garay. inta aan mar kale kulmayno